سأل سعودين ساكيتو 26 بشهر أكتوبر waxaan noo furmay kalfadhiga 45aad ee baarlamaanka si runtii si habsami loo fiican uu noogu socday sida caadiga ahayd markii kalfadhigii dhamaaday madaxweynaha waxaan weydiiyay su'aal xildhibaano badanna runtii way safnaayeen waxay rabeen su'aalaha weydiiyaan su'aalaha iyagu ku salaysnaa tayadu waxay ku salaysnaa xaqiiqda dhabta ah ee wadanka ka jirta waa uu qodobeeyay waxaan tusaaleeyay maaragtay wax kasta oo wadanka ka jira xaaladooda amni waxaan ka siyaasad dhaqan haddii ilaahay ku roon yahay iyo bulsho intaba sida baarlamaankuna waa wakiil bulsho shalay markaan halkaa dad ku dooranaynay qof walba isagoo musharax oo hebel la yiraahdo uu yimi madaxweynuhuna kuwaasu ka mid ahaa markaan dooranayna wuxuu ka baxay isagoo madaxweynaha su'aalaha aan weydiinay meeshii madaxweynuhu si nadiif ah uga jawaabi lahaa oo dastuuri ah xildhibaanada kale oo harsanna uu ka dhageysan lahaa su'aalaha iyo aaraada ay qabaan iyo fikirkooda wuxuu bilaabay madaxweynuhu hanjabaad inuusan xurmaynin hoolkii iyo baarlamaankii iyo mujtamac intaa leeg oo daawadayaal ah oo mas'uuliyiin dawladeed iyo diblomaasiyiin iyo hay'adaha caalamiga ay dadka socda ay wada joogeen wuxuu bilaabay inuu handado khaasatan aniga xataa sidaad dhagaysanaysaan wuxuu iga dhaxan jabay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa madaxweynaha taas hanjabaadda anugu sidiis hanjabi maayo sidiisoo kale laakiin dastuurkaan ku hanjabaya haddii alla idmo jawaabtana isagu ka helayaa laakiin waxaa ceeb iyo sharaf dhaca madaxweynaha anugu wax xumaana ma oranin nin oday oo saaxiibkay oo ahaa waxaan weydiiyey oo keli ah qaaraadaydii iyo su'aashaydii shakhsi oo aan sax u lahaa mudan ahaan inaan weydiiyo waad u jeedeen si cara leh uu hoolkii uga baxay iyadaan la fasixin waxaa dastuurku qabaa marka madaxweynuhu khudbadiisa dhammaysto su'aalaha la weydiinayana uu dhammeeyo in guddoonka baarlamaanku uu madaxweynaha fasaxo isagoo xildhibaanada ka codsanaya in madaxweynaha la fasaxo ma yeelin waxa weeye wuxuu rabay markuu ku hadlay uu iska baxay insha Allah haddii alla idmaanagu xildhibaan ahaan iyo bulsho ahaan maadaama aan nahay wakiilo bulsho dib baanu isugu noqonaynaa wixii tillaabo ah oo maaragtay aan wax ku saxaynana cid aan uga haybaysanayna haba yaraatee ma jirto madaxweynuhu wuxuu sheegay in ammaanka wax laga qabtay gobollo badan la soo celiyey waxaas dhan wuxuu ka jiraa madaxweynaha wuxuu qabtay waa wixii loo doortay wuxuusan qaban baa anagu weydiinayno iyo aaraada dadku ay rabaan sida su'aashayda ka hadlayseen waxa weydiinayay waxyaalaha wadanka waa la socotaan kacdoonna ka jira waxa weeye talaba markaan insha Allah waa in la soo socodsiinaynaa wixii dastuurkuna farayaan qaadanaynaa xildhibaana waxa sheegtay amniga Puntland uu faraha ka baxay Puntland ka ku nool amniga ka jirta waatay fikrada laga faray hadda buucad adigu meesha aad ku nooshahay oo ammaan ka jiro waxaan ka hadlaynaa Puntland markaan ka hadlaynaa gibi ahaan wadanka oo dhan sidaas darteed meel kasta wax ka jiraan waxa laga rabaa isaga mas'uulka qofka jooga meesha ugu dambaysa corner ilaa corner madaxweynaha la rabaa amnigiisa iyo xuquuqda muwaadinka inuu ilaaliso xukuumadda laga baahan yahay annagana markay ilaalin weydo waajibaadka dastuuriga inaan ka qabsanaan oo ka baahan yahay ma qurux badnay madaxweynuhu dalka mas'uuliyad buu hayaa haddii su'aalo la weydiiyo way waliba baarlamaankii oo matalay shacabka bulshada haddii su'aalo weydiiyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ka jawaabo inuu cadhoodo oo carro ma meeshuna bakhaar ma ahayn waa golihii baarlamaanka waa golo dastuuri ah saddex hay'adood baa dalka ka jira hay'adda fulinta hay'adda garsoorka iyo hay'adda xeerdejinta waxay mas'uul ka tahay inay dawladda la xisaabtanto su'aalana madaxweynaha weydiiso halkan waxaanu ka sheegayaa shacabweynaha reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed madaxweynuhu markuu noo imanayay qori caaradii kuma iman cod buu ku yimi isagoo shacab uu soo galay baarlamaanka isagoo madaxweynaha buu noqday halkanna qori caaradii laguma qabsanin waxa lagu qabsaday cod baa lagu qabsaday maalintii imanayay wuxuu dhaleecaynayay oo maagayay oo waxaan jiraba ka sheegayay madaxweynaha sida ka horeeyay madaxweyne maxamed cabdiweli maxamed cali gaas ayuu ka sheegay wuxuu rabo dhooranayay madaxweynuhu marnaba kamuu joojin ololihiisii iyo hanjabaadiisiiba uu dhagaysanayay doorashuu la galay madaxweynuhu waa laga helay si sharaf iyo karaamo leh ku wareejiyay marka waxaan leeyahay madaxweynaha dalka qori kumaad qabsan cod baad ku qabsatay golihii ku siiyeyna inaad sharaftaaday ahayd inaad u hanjabtana xaq u maleeyay ka xildhibaan ahaan sida xildhibaankii horeba sheegay xildhibaanada hadda iga dambeyn doonaaba kullay dee baarlamaanku dastuur buu soo ilaaliyay waa xeer ilaaliye dastuurkanu dib u noqon doonaa wuxuu uu nafarayana waajibkaygana insha Allah ka qaadan doona madax xildhibaan waxaa jira hadal hayn sheegaysa in mooshin dawladda ka riixaysa dawladda federaalka uu jiro hataa anigu kaama ogin haddaydan idinku ogeyn idinkaa saxaafadoo meelba farta geliya haddaydan taa war u hayn anigu mooshin jira ma hayno
federaal mooshin wado ma hayno federaal xukuumadda wado ma hayno mooshin ma hayno dee kaas idinku baa yaqaana bal farta noogu fiiqa meeshu ka jira iyo halka laga soo abaabulay xildhibaan ahaan waxaa la sheegaa in daliilaha madaxweynaha aad u jeedinaysaan inaad shacabka maqashaysaan laakiin aysan jirin tallaabo aad qaataan xaq bay u leeyihin shacabku inay maqlaan dhaliishan dowladda u jeedina waxaan u matelaynaaba waa dhaliil iyo toosiye oon dhaliili karnaa haddii khaldan waa dhaliilaynaa laakiin shacabka u toogi mayno heesana u qaadi mayno laxan fiicanna u saari mayno laakiin waa dhaliilaynaa waxaanu kaloo ummadda tusaynaa iyo dadka aanu matelo waxaanu waajibaadka naga saaran haddaama waxaad rabtaa inaanu marka madaxweyne yimaado u qaadno noolow u qaadi mayno hadduu noolow yahayna waa noolow hadduu khaldan yahayna waa toosinaya sidaad ogsoontihiin kala fadhigan waa kala fadhi dastuuriya baarlamaankuna shaqadiisa uu ku guto isla xisaabtanka xukuumadda sidaad ogsoontihiin golayaasha waxay aad iyo aad ugu dhex socdeen dhammaan hay-adaha dawladda iyo gobollada iyo degmooyinka dadka si loo ogaado waxyaabaha baahida oo jira runtii waxaan aaminsannahay muddadii hadda xukuumaddaani jidhay inaanay adeeg bulsho la samayn gobollada baahiyahan ku soo aragnay waxa halkan madaxweynuhu ka akhriyay inay islahayn golo badan ayaa xildhibaano badan ayaa liisgalaysanaa inay su'aalo weydiiyaan madaxweynaha waxaana isla xisaabtanka golahana waa wax xaq loogu leeyahay dastuuriya runtii sida muuqataa hadda madaxweynuhu isagaa waxa weye shirkiina carqaladeeyey kana baxay markii xildhibaankii u horreeyey su'aal weydiiyey xaqna waxaan ugu leenahay 48 saac oo xiriir ah haddii aanu la xisaabtamayno su'aalo weydiinayno adeegga bulshada ku xiriira ee dawladdu bixiso in uu naga jawaabo in uu naga qanciyo inuu waxa weeye dukumiinti haddaanu dirsanno isagoo meesha fadhiya naloo keeno caddaymihiina uu maarata una tusiyo wuxuu ka soo horjeestay isla xisaabtankii waxa weeye waxaa meesha fadhiyey oo shacabka ugu badnaad maqlayseen ridaya waxay ahayd golihii wasiirrada golahanna waa golo baarlamaan waa golo isla xisaabta golo lagu sacbiya maa shaqadii ummadda loo qabtay baa laga rabaa waxa weeye dhaliishoodii baa meeshaa lagu qarinayey madaxweynuhuna waa diiday inuu xisaabtamo inuu xukuumaddu waxa weeye ummadda transparentigii iyo wixii aan weydiin lahayn duwaantaa waxa weeye waxaa ku qoran wixii aanu aragtiyii aanu ka soo ururnay shacabka reer puntland iyo dhaliyihii dawladda ciddii sixi lahayd oo aanu u gudbin lahayn waa madaxweynaha de wixii dhacayna waxay la tahay shacabka reer puntlandna waa daawanayeen idinkuna goobjoog baa ka hayday marka de golaha waxa weeye golaha shacabka iska leh annaguna xildhibaanadii shalay keensaday baa nahay mudul ninkii dhisay baa ka weyn baa la yidhi waxa weeye isla xisaabtanka cid allaale iyo ciddii diidda ee dastuurka wuxuu ka qaban ku qaadeen waxaa laydinku eedeeyaa inaad marka hore madaxweynaha kululaysaan kadibna hadhow aa iska heshiisaan oo saa danta shacabka ka tagtaan ma isbedelaysaan berri mise sida tan aa u daba taagnaan doonta baarlamaanka puntland waa ka duwan yahay baarlamaanadii hore anigu waxaan ahay nin shacab ah baan ahaan jiray muddo yar baan hadda baarlamaanka ka tirsanahay wax allaale iyo wixii xilligaan shacabka aan jeclaa in la ii qabto baan doonayaa halkan intaan joogay inaan ka hirgeliyo oo adeegga ummaddu ay gaadho dawladnimadu shaqayso kala dambaynta la hirgeliyo nin intuu meel iska fadhiisto maaragtay hadduu khudbad soo diyaariyo de anigu waxaan doonaa hadda akhrin kara puntland waa jannaan oran kara iyadoo waxba ka jirin arrintaa ma qaadanayna waxaan doonaynaa itus oo itaabsii madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu sharciyadda dib ugu soo noqdo baarlamaanka uu fowdeeyey inuu dib ugu soo noqdo isagu berito u soo horrayso inuu dib u yimaado inuu xisaabtamo 2,000 oo su'aalood baan weydiinana xataa 10 su'aalood maaha waa inuu u fadhiyaa noogana jawaaba haddii taa la waayo wixii ka yimaada hadda mas-uuliyaddiisa oo dayacay weeye annaguna waxa go'aan ka duwan baanu qaadan doonnaa maxaa yeele xil baa naga saaran dalka shalan annagaa u dhiibnay mas-uuliyadda maanta waxaad og tihiin inuu ahaa kalfadhigii 45aad ee golaha baarlamaanka puntland oo ah wax dastuuri ah waxa dastuuri ah fadhiga madaxweynuhu ka soo qaybgelayo oo uu furayo xidhayana oo uu furayo waxa dastuuri ah oo dastuurkeennu qabaa xeer hoosaadkuna qabaa baarlamaanku inay madaxweynaha su'aalo ku hor weydiin karaan kalfadhiga furitaankiisa markuu dhammaysto khudbaddiisa waxaa kaloo xeer hoosaadka baarlamaanka ku qoran ama dastuurkeenna ku qoran in madaxweynaha marka uu khudbadeeyo kadib loo yeedhan karo oo su'aalo la weydiin karo waxaad meesha ka dareemayseen maanta xildhibaankii weydiiyey su'aalaha xaq buu u lahaa inuu weydiiyo waana dastuuri xaq baan u lahaa anigu inaan weydiiyo madaxweynaha dastuuri waana diyaarsanaayeen xildhibaanada badankooduna inay madaxweynaha marxaladda dalku marayo iyo waxqabadkii uu qabtay wixii uu kaga jawaabi lahaa in la weydiiyo unbay muhiimaddu ahayd madaxweynuhu runtii khudbad aad u wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysu ka khudbadeeyey laakiin waxaa la rabay su'aalaha ka imanaya su'aalaha inuu si sharaf leh si madaxweynenimo ah si mas-uuliyadnimo ah inuu madaxweynuhu uga warramo waad arkayseen shacabkuna waa bidhaaminayeen ama way eegayeen ama way arkayeen wixii ka dhacay meesha ma ahayn madaxweynuhu inuu xildhibaanada u hanjabo uma hanjabin hal xildhibaan cawil madaxweynuhu uma hanjaba wuxuu
hanjabay 66 xildhibaan ayuu ugu hanjabay oo golaha baarlamaanka dhexdiisa ugu hanjabay taasna xaq maaha in sha allahu tacaala dastuurkaana anaga iyo madaxweynaha anagaa dooranay madaxweynihii dalka weeye maaha madaxweynuhu waxa weeyaan madaxweynayaal buu la tartamay isaga ilaahi subxana wa tacaala guushii siiyey waxaa la rabay marka madaxweynuhu sidii wax u dhaliili jiray markuu sidii xildhibaankii ugu horreeyey ka hadlayey sidii wax u dhaliili jiray ayaa loo dhaliilaya hadduu wax qabtana waa la ammaanaya madaxweynaha marka maaha madaxweynuhu inuu dulqaad badan ummadda u yeesho shacabkiisa u yeesho baarlamaankiisa u yeesho ayaa loo baahnaa waxaad dareemay insha allahu tacaala waxaanu ku garnaqsan doonaa ama ku wada hadli doonaa dastuurkeenna waxa uu ka qabo waxay ka dhigan tahay dastuurka madaxweynuhu inuu jibiyo golaha loogama baahnaa inuu madaxweynuhu ka kaco iyadan guddoomiyaha baarlamaanka u ogolo xeerkiisa waxa way banaanka in loo tuuro